wadamada ku yaala ama dalalka ku yaala qaaradda Asia ay markaasi kolba ka dambaysa iyaguna ay ka soo kordhayaan cadaadisyo kala duwan oo dadka muslimiinta lagu hayo dowladda yaal madaxweynaha dalkaasi Mareykanka madaxweyne Donald Trump ayaa la sheegay inuu khilaaf xooggan kala dhaxeeyo xogayaha diblomaasiga ugu sarreeya arrimaha dibadda dalka Mareykanka Rex Tillerson oo ah xogayaha arrimaha dibadda waxaana arrintan ay soo shacabtay kadib markii warbaahinta Mareykanku ay soo daabacday in khilaafka labada mas'uul uu ka dhashay kadib markii wasiirka arrimaha dibadda uu diiday in uu riixo oo iibiyo siyaasadda in taageero loo raadiyo weerar lagu qaado dalkaasi waqooyiga Kuuriya oo uu ka cagajinayo Mr. Rex Tillerson madaxweyne Donald Trump ayaa dhawaan hadallo adag ku qoray badse Twitterka isagoo u sheegay inuusan ahayn inuu juhdi iyo waqti ku dhumiyo Mr. Rex wadahadal lala yeesho maamulka waqooyiga Kuuriya oo uu sheegay in ay ka qaadanayaan tallaabo ay ahayd in horey loo qaato waxaana arrintaas oo ka hadlaya uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda xogayaha arrimaha dibadda Mareykanku inuu jiro warkaasi wuxuuna sheegay inay been tahay inuu doonayo inuu iscasilo wuxuuna sheegay inuu sii shaqeyn doono tan iyo inta guuli uu helayo taageerada madaxweynaha iyo inuu inta uu ku kalsoon yahay madaxweynuhu Tillerson ayaa taageero mug la siiyey siyaasadda madaxweyne Trump wuxuuna sheegay inuu xilka sii hayn doono ilaa inta uu madaxweyne Trump ay ka dhamaanayso weli kalsoonidiisa taasoo loo fasirtay hadal markaasi madlaha hore iyo warbaahinta Mareykanku waxay soo qoreen in shir ka dhacay wasaaradda ama waaxda difaaca ee magaalada Washington ee Pentagon uu ka dhaxeeyay Mr. Rex Tillerson in uu yahay ninka madaxweynaha ahin aan waxba kala ogeyn isla markaana hab doqonnimo ah wax u maamulaya taasoo la sheegay in loo geeyay hadalkaasi madaxweyne Trump oo aad uga cararo hase yeeshee warbaahinta Mareykanka gaar ahaan TV-ga afka dheer ee taageera dowladda jamhuuriga xukuuma ee Mareykanka ee Fox News ayaa waxaa waraysi uu siiyey ayuu diiday inuu beeniyo inuu ku tilmaamay madaxweynaha nin markaasi doqon ah oo siyaasadda aan waxba ka ogeyn hase yeeshee madaxweyne Trump ayaa la sheegay inuu ka fikirayo inuu bedelo Rex Tillerson taasoo warbaahinta Mareykanku iska dhex marayso hase yeeshee waxaa diiday warkaasi xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sabtidii hore ka sheegay magaalada Beijing ee xarunta dalkaasi Shiinaha inay doonayaan inay wadahadal la yeeshaan waqooyiga Kuuriya sidoo kalena ay jiraan wadiiqooyin ay u maraan oo ay wadahadallo toosa ku la yeelan karaan isla markaana ay ka hayaan xiriir joogto ah dalkaasi waqooyiga Kuuriya hase yeeshee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa warkaasi Rex Tillerson ku tilmaamay mid malawaale isla markaana wuxuu sheegay in uu xallin doono dhibaatada uu sheegay inay ka taagan tahay waqooyiga Kuuriya oo uu sheegay in madaxweynayaasha Bill Clinton George W. Bush iyo weliba Obama ay ku fashilmeen isla markaana la rafanayeen muddo 25 ku dhawaada dalka Mareykanka madaxweyne Trump ayaa la sheegay inuu kolka uu soo gabagabeeyo dhacdooyinka Mareykanka ka taagan gaar ahaan magaalada Las Vegas oo ku sugan yahay si uu uga qayb galo duco loo sameynayo dadkii lagu xasuuqay halkaasi iyo la kulanka saraakiisha dhinaca booliiska ee ka howlgalay waxaa loogu yeedhay ka jawaab celintii xasuuqa uu geystay ninkii markaasi 64 jirka ahaa uu soo gabagabeyn doono kadibna uu geli doono wada tashiyo ku saabsan dhinaca amniga iyo tallaabooyinka ay tahay in laga qaado waqooyiga Kuuriya dad ku dhow ama diblomaasiyiin ku dhow madaxda xukunta ama xisbiga talada haya ee Republicanka la yiraahdo ama jamhuuriga ee Mareykanka ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha uu mar walba aaminsan yahay in tallaabadaas la qaado isagoo cadaadis weyn ku saaraya madaxa difaaca ee Mareykanka Jim Mattis iyo taliyaha ciidanka qalabka sida Mareykanka Major General David Stephen Danford in ay u diyaargaroobaan tallaabo culus oo laga qaado waqooyiga Kuuriya isla markaana la eega doonin bataalada markaasi ay sida joogtada ah u tijaabinayso Mareykanku aysan ahayn inuu sugan ay leeyihiin in tallaabo laga qaado xiisadda cusub ee madaxda Mareykanka u dhaxaysa ayaa ka tarjumaysa sida maamulka madaxweyne Trump ugu kala jabay qadiyadda waqooyiga Kuuriya iyadoo Rex Tillerson iyo xubno markaasi la safan oo ka mid yahay madaxa ama agaasimaha guud ee aqalka cad ninka John Kelly ay aaminsan yihiin in ay degdeg noqonayso tallaabo markaasi la qaato iyagoo aaminsan in dad badan kulli arkaan magaalooyinka Turkiga